xogayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa James Swan u magacaabay dhalashadiisuna tahay dalka Mareykanka wakiilka gaarka ah ee Soomaaliya kaasoo bedelaya Nicholas Haysom oo kowdii bishii Janaayo sanadkii 2019 gabi ahaanba dalka laga eriyay. Wakiilka cusub ayaa inta u dhaxaysa 2008 ilaa iyo June 2011 ahaa safiirka Mareykanka ee dalka Djibouti halka bishii Agoosto sanadkii 2013 loo magacaabay danjiraha Mareykanka ee Congo Dimuqraadiga. Ninkan 56 sano jirka ah waxa markaasi shakhsiyaadkan uu leeyahay xifrad gaar ah wuxuuna ula shaqeyn jiray madaxweynihii hore dalka Mareykanka ee Barack Obama waxa uu ka soo qaaday aan markaasi uu ka soo ahaa kaali ku xigeenka xogayaha guud ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha qaaradda Afrika. James Swan oo dhaqanka Afrika si wanaagsan u yaqaana waxa uu bartay xiriirka caalamiga iyo waliba cilmiga difaaca qaranka oo jaamacado kala duwan uga soo baxay jaamacadda lagu magacaabo National War College ee dalka Mareykanka ku taala ayuuna ka qalin jabiyay waliba jaamacadda lagu magacaabo George Gotowan oo ku taala gudaha dalka Mareykanka. Xifrad gaar ayuu u leeyahay in markaasi waxyaabo kala duwan oo ka bedelo xogayaha cusub ee arrimaha Soomaaliya Captain James Swan oo markaasi inta badan waxyaabo badan siyaasadda Afrika waxyaabo badan ka loosan u yaqeeno 2012 ilaa 2013 waxa uu markaasi si ku meel gaar ah ula shaqeynayay xilligii dowladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaana markaasi uu inta badan oo leeyahay xifrado gaar ah dhanka siyaasadda iyadoona wakiilka cusub inta u dhaxaysa 2008 ilaa 2011 oo ah safiirka Mareykanka ee dalka Djibouti.